السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك مeel baad joogtaan waa idin salaamay salaanka bacdi. Maanta waxaan ka hadlayaa haweeneydan iyada oo nool ayay waxay tiri sida taxsiida la iigu dhigaayo ayaan rabaa inaan arko. Maxaase dhacay maxayse ka wadaa waxaas oo dhan halkan ayaan ka ogaan doonaa insha Allah biidnillah. haddii aad janalka ku cusub tahay subscribe saar gambaleelkan furo like share siina share garay si uu asxaabtaada u gaaro commentina ka bixi insha Allah biidnillah. qisadii ayaan u guda galaynaa. haweeneydan waxa ay jirtaa 59 sano. bishaan aan ku jirno ayayna dhacday. haweeneydan waxa ay tiri waxaan rabaa markii aan dhinto sidii laygu sameynayo taxsiyada in aan arko ayaan doonayaa ayay tiri gabadhan. islaantii faamiligeeda waalidkeeda iyo asxaabteeda iyo dariskeeda jiiraanka ayay iskugu wacday. waxayna tiri waxaan rabaa markii aan dhinto sida aad ii qabaqaabinaysiin aad taxsiideydii u qabaqaabinaysiin ayaan eegayaa ayay dhahday. islaantii waxaa loo guda galay saaxiibadeeda dariskeeda iyo faamiligeeda iyo waalidkeedba waxay u guda galeen si ay taxsiideeda u qabaqaabin lahaayeen. inantii waxa ay soo xeratay dharkii cadcadaay naxashkii ayaa lagu riday wejigeedana waxa ay marsatay bootarkii qurxinaya maaha bootar laga dhaxaayo ayay wejiga marsatay waxayna iska dhigtay wax dhintay. haweeneydan qarashka ay ku bixisay $1 ayuu ahay. $1kii marka ay dhiibtay qarashkii ayaa la galay sida dadka casuumay wixii loo fidinayay naxashkii ayaa lagu riday. dadkii naxashkii ayay soo booqdeen markaasay ku kor oynayaan markaasay ku kor baroorteen iyadana si ay u dareento sida taxsiida loogu dhigaayo ay u aragto iyadoo aysan dhiban. laa xawla walaa quwwata illaa billah. gabadhii habeeneydii ahayd sidaas ayaynu ku ogaatay taxsiidii sida loogu dhigi lahay iyo qaabkii iyada ma arkinoo loo sugayti lahay. waxyaabahaas oo dhan ayay rabtay inay ogaato. waxayna ku ogaatay halkaas ayaynu ku ogaatay qarashkiina iyada ayaa la baxday. kadibna naxashkii marka ay ka soo baxday iyada oo ku jeejeesayso meedka ayay waxay tiri ha dhimanin halkan waa gawaan lama seexan karo. yacna waxay ka wadaa cayo iyo dhimashada soo degdegin waayo dhimashada ma fiicno oo waxa weeye halkan meesha aad seexanaysid meel oo gawaan oo yacna oo adag waaye. marka waxa waaye qof walba oo hor adduunyadan nin walba wuxuu leeyahay diimo kala duwan. qof walbana si walba oo si kala gooni ayaa loo duugaa. annaga waxaas ma naqaano dad muslimiin ayaa nahay iimaan ayaa leenahay alxamdulillaah. ilaahay diinteena ha nagu sugo. marka waxyaabaha oo adduunyadan ka dhacayo waxyaabaha mararka qaar aad la yaabaysid maskaxdaada aada galaynin ayaad arkaysaa. marka adduunkan la saaran yahayna wax walba waa la arkaa. marka allaha naga koriyo qof nool oo haddana dhahayo waa markii aan dhimanayo sida ma arkinoo taxsiida la iigu dhigaayo ayaan arkayaa. wallaahi mid iigu cusub aan weligay maqlin waaye. waana aad ayaan ula yaabay run ahaantii. marka waxa waaye iimaanka ayaana la isdheeryahay iyo diinta. marka inaan ku mahdino waaye diinteena alxamdulillaah iyo iimaankeena allaha noo siyaadiyo. marka walaalahaygii qisadaas ayaan rabay inaan idiin soo gudbiyo. marka insha Allah waxyaabaha
mararka qaar adduunyada la yaabka ku ah iyo qisooyinka dhaco iyo waxa xaqiiqda ah ayaan rabaa ayaan idiin soo gudbinayaa insha Allah marka biidnillah hadduu ilaahay raali ka noqdo marka gambaleelka hala saaro insha Allah like fara badan hala iska saaro insha Allah marka xaqina waa leedka